sida uu xaqiijiyey county commissioner ismaamulka Mandera. xubno looga shakisan yahay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa dilay wiil iyo aabihiis kuwaas iyaga ah oo socdaalayay aagga deegaanka Jabibar oo u dhaxaysa Ramo iyo Ceelwaq. Cali Cabdi Baricha oo 38 sano jir ahaa waxa uu ku laabanayay xaruntiisa shaqada ee ismaamulka Wajeer kadib 2 isbuuc oo fasax ah oo uu ku maqnaa. waxa uu ahaa injineer u shaqeeya maamulka wadooyinka miyiga ah ee dalkani Kenya ee la yiraahdo Kenya Rural Roads Authority. wiilkiisa oo 12 sano jir ahaana waxa uu ahaa ardaydii dhawaan u dhameeyay imtixaanka primary-ga ee KCPE. Onesmus Kiada oo ah county commissioner Mandera ayaa waxa uu xaqiijiyay geerida labadan shakhsi ee wiilkii aabihiis ah. gaariga sidoo kale sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliska ee qaranka 2 askari oo ciidanka booliska ka tirsan ayaa gaariga la socday kuwaas iyaga ah oo ku dhaawacmay isrisaaseen ayaga iyo xubnaha siyaga dhaxmartay. Khamiistii ayay ahayd markii xubno looga shakisan yahay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ay afduubteen gaari ay lahayd hay'adda Action Against Hunger oo ah hay'ad aan dawli ahayn oo ah mid NGO ah. ilaa iyo hadda gaariga iyo darawalkiiba gacan laguma hayo. bil ka hor ambulance 4 qof siday ayaa iyaduna laga afduubtay isla ismaamulka Mandera, inkasta oo 2 maalin kadib la soo daayay dhammaan dadkii ambulance saarnaa. iyada oo county commissioner Mandera uu arintaasi uga mahadceliyay dhigooda gobolka Gedo kuwaasi oo uu sheegay in ay ka caawiyeen dib u soo celinta shakhsiyaadkaasi.